الله ونحرسته waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday caalamkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. Sheekh Nuur Baaruud oo ka mid ahaa culimada diinta Islaamka ee uga magaca dheer Soomaaliya ee Geeska Afrika, waxa uu cimrigiisa oo dhan u horay fidinta iyo barista dadka ee diinta, isagoo aan weligii ka gaban cadeynta xaqa xaalad kasta uu ku jiro. Wararka ayaa sheegaya in sheekha uu u geeriyooday xanuunka COVID-19, balse dawladdu ma xaqiijin arrintaasi. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaana ka tacsiyay geeridiisa. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waxa uu ka mid ahaa cilmu-diinka Soomaaliyeed ee haatan ku sugan dalka, waxa uuna diinta Islaamka barashadeeda ku soo bilaabay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya. Waxa uu ka tagay ilaa iyo 9 caruur ah oo kala ah 5 wiil iyo 4 gabdhood. Sheekha ayaa waxa uu marar badan ka badbaaday weerar qorsheysan oo loogu talagalay in asiga lagu dilo. Dhanka kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu soo qoray qoraal bartiisa Facebook, waxa uuna ku yiri waxa la xaqiijiyay geerida Allah uu naxariisto Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa tiirarka waaweyn ee culimada Soomaaliyeed. waxaana qoyskii uu sheekhu ka baxay iyo guud ahaan bahaweynta ku abirsata isirka Soomaaliyeedba ugu tacsiyeynaya geerida naxadinta leh ee sheekha ku timid. Sheekh Nuur Baaruud waxa uu ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee Ilaahay ka sokow sababta u ahaa naftooda iyo waqtigoodana u horay in bulshadeennu ay si sax ah u fahanto ugana dhaqanto diinteena suuban ee Islaamka. Wuxuuna sheekhu sidoo kale mar walba safka hore kaga jiray gudiyada isku xilqaama ama loo xilsaaro howlaha gurmadka iyo gargaarka ah ee loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed marka ay masiibooyinka dhacaan. Waxaana Ilaahay ka baryayaa in sheekha uu siiyo naxariistii janno, ummadda Soomaaliyeedna ay bedelkiisa helaan, bedel khayr qaba oo booskii uu sheekhu ka baxay buuxiya ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa. uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. naf walbo waa tii geeri dhadhamiso. taariikhdiisa oo kooban waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal.